eray waxsan liyo waanadii culimada waxyaruun dhagayso aadamahan kala wareegiyo ku jira wadiyada wardigiyo tasbiixdiyo wuxuu ka gunuudo weedhaha culimada wanaagiyo samahan lagu bashay wargaysyada wacdigeenna diintiyo ummadii waanadane aan wada weelayno weedhaha culimada sida waqalka roobkiyo ku warabsha diinte u fura wareegyada dhiigo aan wada weelayno weedhaha culimada. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد موضوع إنه كهضلينه فدقا إن شاء الله تعالى وحكسها بسنية هاي حق إليهن لبدا والد يسمى فالكودو إيو الديجيتال لقد إيو إن وحويا عقوق إيو عصيان لقولي مادو لبدا والد labada waalid xuquuq aad iyo aad u fara badan ayay leeyihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka uu ugu sheegay nebi muxamedna calayhi salaatu wassalaam uu u sheegay siyaabo kala duwanna arrinka ay u caddeeyeen ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka mid a in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku lamaaneeyey cibaadadiisa inuu ku lamaaneeyey samafalka loo samafalaya labada waalid. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu xukmiyey inaydan caabudin cibaado xaq ah oo aanu mutaysan ilaahay subxaanahu watacaala mooye cid kale aanay mutaysan. waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah, isaga mooye cid kale inaydan caabudin baa alla xukumay. markaasaa ilaahay wuxuu raaciyey wabilwaalidayni ixsaana ay waqadaa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana. waxaa kaloo alla xukmiyey inaad labada waalid u samafashaan. waxaa kaloo alla yidhi subxaanahu watacaala aayad kale wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana. ilaahay subxaanahu watacaala keligii caabuda, cidna ha la wadaajinina cibaadadiisa, labada waalidna u samafala. halkaa waxaa laga qaatay oo laga gartay labada waalid xaqoodu inuu aada iyo aada u wen yahay, maadaama ilaahay subxaanahu watacaala uu ku lamaaneeyey amarka uu amray in loo samafalo, uu ku lamaaneeyey amarka uu alla in amray cibaadadiisa iyo keligii in la caabudo. waalidku samafalka loo samafalayaa aada iyo aada buu u fara badan yahay. samafalkuna waa inaad siiso waalidka ama labadaada waalid wax kasta oo wanaaga, hadday afka noqoto iyo hadday adinka noqoto iyo hadday waxtar noqoto. taa waxaa kasoo horjeeda markaa cuquuqda kasoo horjeeda, oo waa inaad labadii waalid dhibto ama waxay mutaysteen oy kugu lahaayeen aada u diido, ama hadal xun aad ku tidhaahdo ama ficil xun aad u geysato. waynuu tilmaami doonaa insha allahu tacaala. nusuusta caddaynaysa siyaabaha kala duwan uga hadashay xuquuqda iyo samafalka ay waalidku leeyihiin waxaa ka mid a in iyadoo la og yahay jihaadku gaalo lagu jihaadaa inuu yahay acmaasha ugu wanaagsan ee ilaahay agtii loogu jecel yahay, ayaa haddana waxaa laga horeysiiyey samafalka labada waalid. waxaa u daliila xadiiska cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhu nebiga ka warinayo ee uu leeyahay nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam isaga oo weydiisanaya inuu u fasaxo u idmo inuu jihaad raaco. kadibna nebigu sala allahu calayhi wasalam su-aal buu weydiiyey. wuxuu yihi labadaadii waalid ma nool yihiin? haa buu yihi way nool yihiin.
waxaa nebigu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam fafiihimaa fajaahid jihaadkan aad raacaysa iska daayo iyaga iyo arrinkooda ku jihaad. alxaafid ibnu xajar raximah اllah shiikha la yihahdaa wuxuu yihi macnaha nebigu salى اllahu عalيه wasalam uu yihi fafiihimaa fajaahid waxaa looga jeedaa fabaaliq juhdaka fii birihima wاlإxsaani ilayhima. iska daa jihaad inaad raacdee waxaad samaysaa waxaad aada iyo aada ugu dadaashaa oo si xeel dheerle aada ugu dadaashaa inaad u samafasho oo aada u wanaajiso. waxaa ka mid a in samafalka labada waalid in nebigu ku tilmaamay salى اllahu عalayhi wasalam camalada ugu waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado inay ka mid yihiin. waxaa u daliila xadiiskii cabdullaahi bni mascuudi radia allahu tacaala canhu inuu yihi rasuulka allaan weydiiyey camalada addoonku shaqaysta camalkeebaa ugu fadli badan. waxaa nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam alsalaatu liwaqtiha salaadaad xilligeedii tukato ayaa camal ugu fadli badan. waxaan ku yihi maxaa ku xiga? wuxuu yihi huma biru lwaalideyn labada waalid oo loo samafala ayaa ku xiga camalka xagga fadliga. kadib waxaan ku yihi huma ay maxaa saddexeeya? nebigu wuxuu igu yihi buu yihi cabdillaahi bni mascuud radia allahu canh aljihaadu fii sabiili illah jidka alle oo aada ku jihaado oo duulaanka gaalada lagula dagaalamayo aada raacdo ayaa saddexeeya. waxaa ka mid a in raalli ahaanshaha alle raalli ahaanshaha labada waalid lagu lamaaneeyey raalli ahaanshaha alle subxaanahu wa tacaala uu ka raalli noqonay. xadiiska cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma cabdullaahi bni cumar isaga iyo aabihiiba alle ha ka raalli noqdee wuxuu yihi oo uu nebiga ka wariyey nebigu inuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam rida الrabi fii rida اlwaalid wa sakhaط الrabi fii sakhaط اlwaalid. raalli ahaanshaha alle waxay ku dhex jirtaay oo ku dhex sugan tahay raalli ahaanshaha labada waalid. cadhada allena waxay ku dhex jirtaa cadhada labada waalid bay ku dhex jirtaa. waxaa ka mid a in nusuusta sharcigu ay ku tilmaamtay samafalka iyo wanaagga loo sameynaya labada waalid in janno lagu helo. waxaa nebiga salى اllahu عalayhi wasalam uu ka wariyey saxaabiga layihahda abudarda radia allahu tacaala canh in rasuulku uu yihi alwaalidu awsatu abwaabi اljanna waalidku wuxuu yahay albaabada jannada kuwa ugu fiican. yacni samafalka loo samafalo wuxuu ku geyeysiinayaa albaabada jannada albaabada ugu fiican ee ugu darajo fiican inaad ka gasho. fain shiئta faadic daka albaab aw ixfadhu haddaad haddaba doonto albaabka iska dayac ama ilaasho. waxaa kaloo xadiiska kale nebiga laga wariyey salى اllahu عalayh wasalam saxaabiga layihahda mucaawiyata ibnu jaahima radia allahu canhu inuu yihi aabbahay oo jaahime ah ayaa nebiga u yimid salى اllahu عalayhi wasalam kadibna wuxuu ku yihi waxaan kaala tashanayaa inaan duulaan raaco iyo jihaad. waxaa nebigu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam hooyadaa ma nooshahay? haabuu ku yihi. wuxuu nebigu ku yihi salى اllahu عalيه wasalam falzamha faina aljannata taxta rijlayha iyada haddaba laasim oo la jooga u samafal waayo jannadu waxay ku sugan tahay gomadaheeday ku sugantay. waxaa ka mid a in nebigu salى اllahu عalayhi wasalam habaaray qofkii aan u samafalin labadiisa waalid. waxaa abi hureyra radia allahu tacaala canhu saxaabigaasi nebiga uu ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam in nebigu maalin maalmaha ka mida uu yihi ragima anfuhu huma ragima anfuhu huma ragima anfuhu sankiisu ha boodhoobo sankiisu ha boodhoobo sankiisu ha boodhoobo oo looga jeedo halaag iyo inuu halaagsamo qof buu habaarayaa markaa nebigu salى اllahu عalayh wasalam aanu sheegin. wuxuu ku habaarayaa in ilaahay kaa uu duleeyo oo sankiisu uu booroob oo uu halaagsamo boodhoobo oo uu halaagsamo oo uu dhinto.
saxaabadii way yaabeen waxay dhahaan rasuulkii allow sala allahu calayhi wasalam qofkanaad habaaraysaa waa kuma waxaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam man adraka waalidayhi cinda alkibari axadahumaa aw kilayhimaa huma lam yadkhul iljanna kaan sidaa u habaaraya waa mid soo haleelay oo soo gaadhay labadiisii waalid iyagoo gaboobay oo waayeel ah soo gaadhay midkood ama labadoodaba soo wada gaadhay sababtoodana aan janno ku gelin. taasi markaa waa habaar nebigu habaaray sala allahu calayhi wasalam qofkii labadiisa waalid uu samafali waaya. waxaa kaloo nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam isagoo caddaynaya xaqa waalidkuu leeyahay sida uu u wen yahay ayaa wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiska abi hurayra radia allahu tacaala canhu warinayo laa yajzi waladun waalida ila an yajidahu mamluukan fayashtariyahu fayuctiqahu. walad iyo mid la dhalay kii dhalay xaqiisa ma oofinayo inuu helo isagoo addoon ah kadibna intuu iibsado uu xoreeyo mooyaane. taasina waxay tutusaysaa qiimaha iyo xaqa waalidku siduu u wen yahay ee aan loo gudan karin. ibnu cumar radia allahu tacaala canhu saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu cumar isaga iyo aabihii baa allaha ka raali noqdee ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo kacbada tawaafaya beytka alle tawaafaya ayaa wuxuu ku soo baxay nin reer yamaneeda oo hooyadiiyo waayeela xambaarsan oo dhabarka ku xambaarsan oo la dawaafayo oo weliba geeraarayo ammaanaya hooyadii ammaanaya dhabarkana ku sida. markaasuu yidhi ibnu cumarow waxa aan hooyaday samafal u samaynaya waad aragtaa inaan dhabarka ku sido oo aan yaman ka keenay si aan u xajisiiyo, ma u malaynaysaa samafalkii ay igu lahayd inaan u gutay? ibnu cumar wuxuu yihi laa walaa bizafratin waaxida, haba ka yaabin inaad xaqeedii u gudday, iska daa inaad u gudday markii ay ku foolanaysay nabaradii qabanayay nabar ka midoo mar qabtay wixii uu mutaystay ee samafal ahaa xitaa umaad gudin. waxaa ka mid a oo caddaynaya waalidku xaqiisa siduu u wen yahay in samafalka waalidku uu yahay acmaasha ilaahay loogu dhowaado camalada ugu fiican. ibnu cabaas baa nin u yimid, nin baa u yimid oo wuxuu yihi qisu uga sheekeeyey. wuxuu niyahow gabadh baan jeclaaday, gabadhii aan jeclaaday ayaan damcay inaan guursado way i diiday, nin kaley guursatay. markay sidaa samaysay ayaan cadhooday, kadibna gabadhii baan qoorta ka gooyo waan dilay, wax towbada ma leehay. wuxuu ku yihi ibnu cabaas hooyadaa ma nooshahay? markaasuu ninkii yidhi maye ma noola. wuxuu ku yihi haddaba ilaahay u toobad keeno, acmaasha wanaagee wan wanaagsanna wixii aada samayn karayso aada iyo aada ugu dadaal. ibnu cabaas baa markii ninkii uu tegay baa la weydiiye oo la yidhi maxaad su-aasha u weydiisay hooyadaa ma nooshahay? wuxuu yihi anigu ma garanayo camal ilaahay loogu dhowaado oo ka wacan oo ka wanaagsan hooyada in loo samafalo. waxaa ka mid a nusuusta ku soo aroortay aada iyo aada ayay u fara badantay. haddaba samafalka loo samaynayo waalidka iyo ixsaanka loo samaynayo maadaama aynu tilmaamnay inuu aada iyo aada u fara badan yahay, qaabab kala duwanna uu yahay, waxaynu tilmaamaynaa wax ka mida oo samafalka labada waalid loo samafalayo. waxaa ka mid a in hadalka loo dabciyo oo marka lala hadlayo labada waalid in hadal dabacsan oo jilicsan oo aan kakanayn in lagula hadlo. ilaahay wuxuu yihi falaa taqul lahumaa uf, ha ku odhan labadaada waalid uf. waxaa looga jeedaa kelmad karaahiye laga dareensanayo laga dareemayo oo inaad karaahiyeysanayso ama aada necbaysanayso. waxa weeye kelmad kasta ama ficil kasta oo laga dareemaa halkan uu soo gudagelaya.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بإلهي waxaad ku tidhaahdaa labadaada waalid hadal iyo weer wanaagsan oo maamuus leh ku dheh. ibnu cumar radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi nin dunuub fara badan galay oo u yimid ayuu wuxuu kula teliyey oo uu sheegay kabaa'irtu iyo dembiyada waaweynee la galaa inay fara badan yihiin oo ilaa 9 gaadhayaan. 9kii wuxuu ugu talagalay wa bukaa'u lwaalidayni min alcuquuq, labada waalidoo laga oohiyaa cuquuqday ka mid tahay. kadibna wuxuu ku yidhi hooyadaa ma nooshahay? ninkii haa buu ku yidhi way nooshahay. wuxuu ku yidhi fawallaahi low alanta laha alkalaam wa acamtaha aطacaam latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir. allaan ku dhaartee nin yahow, haddaad hooyada hadalka u dabciso oo aada quudiso jannadaad gelaysaa oo aada gelaysaa oo aada gelaysaa. hadalka wuu adkeeyey. waxaa ka mid a waxyaabaha waalidka loogu samafalo in mar walba quluubtooda la geliyo waxay ku farxaan, in loo sameeyo waxay ku farxaan. cabdullaahi bnu camr ibnu caas radia allahu tacaala canhu saxaabiga la yidhaahdo, ilaahay isaga iyo aabbihi baa ka raali noqday, ayaa wuxuu yihi nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam oo kula baayactamaya inuu hijroodo oo uu waxa weeyaan ka tago dhulka gaalada una hijroodo dhul muslim. isla markaa ninkaasi wuxuu ka yimid labadiisii waalidoo ooyaya oo tegitaanka uu ka tegayo la ooyaya. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku irjic ilayhima wa adxikhumaa kamaa abkaytahumaa, orodoo noqo labadaadii waalid ku noqo oo ka farxiyo ka qosli sidaad uga oohisay. waxaa ka mid a in labada waalid la siiyo wixii maale aada haysato aada awoodo inaad maalkaaga wax ka siiso. weliba aabbaha iyo hooyada marka ay joogto aabbaha ayaa sii mudan. waxaa sii mudan cafwan markay samafal ay tahay iyo ixsaan iyo xoolo iyo waxay u baahan yihiin oo la siinayo, waxa sii mudan hooyada ayaa sii mudan. nebiga sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiya u yimid oo ku yidhi rasuulkii ilaahayow samafalkayga yaa u mudan? wuxuu ugu jawaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam hooyada. haddana wuu ku celiyo wuxuu ku yihi hooyada. haddana wuu ku celiyo wuxuu yihi hooyada. markii afraad ayaa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam aabbaha. wixii intaa ka dambeeyana sida lagugu kala dhow yahay ayaad waxaweeye samafalka ugu samaynaysaa. waxaa samafalka labada waalid ka mid a ciddii ay qaraabada la ahaayeen ee xaggooda nasabka ama waxa weeyaan musaaharada iyo xididtinimada ciddii waxa weeye sokeeyo u ahayd labadaada waalid inaad xidhiidhiso, gaar ahaan marka ay dhintaan inaad xidhiidhiso, bal ee inaad xidhiidhiso waxa weeyaan kuwii ay saaxiibka la ahaayeen. ibnu cumar baa radia allahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mid ah waxaa ka soo horbaxay nin acraabiya oo reer miyiya. markaasuu aada iyo aada u karaameeyey ibnu cumar oo gaadiidkii uu saaraa siiyey oo cimaamadiisii siiyey. markaasaa lagu yihi ninkani waa reer miyi, intaa wax ka yar bay ku raali noqonayaane maxaad waxa weeyaan aada waxaasoo dhan u siisay? wuxuu yidhi ninkani wuxuu ahaa aabbahayo cumar ibnu lkhadaab radia allahu tacaala canhu saaxiibkii buu ahaa. waxaanan maqlay nebigo leh sala allahu calayhi wasalam samafalka waxaa ka mid a in aada xidhiidhiso aabbaha saaxiibadii inaad xidhiidhiso. waxaa ka mid a samafalka marka ay dhintaan inaad wax u sadaqadaysato, inaad masaajid u dhisto haddaad awoodo, inaad ceel u qodo haddaad awoodo, inaad kasoo xajto ama kasoo cumraysato haddaad awoodo.
aad iyo aad bay u fara badan yihiin xuquuqda ay labada waalid leeyihiin, waanay kala duwan yihiin oo noocyo fara badan bay leeyihiin. waxaa ka mid a in waxa weeyaan laga ilaaliyo waalidka in xuquuqnimo lagula yimaado. xuquuqnimadu laba siyoodba way noqonaysaa: xaq ay lahaayeen ama samafal ay lahaayeen oo laga gaboodfaloo la siin waayo, waxay ka mid tahay xuquuqda. samafalkii aynu soo sheegnay wax ka mid a oo la siin waaya caaqnimay noqonaysaa. caaqnimo waxaa noqonaysaa in xumaan loo geysto, in la aflagaadeeyo, in la karaahiyeysto, hadal ay dhibsanayaan in lagu yidhaahdo, in sabab loogu noqdo in la caayo. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidka abi bakra saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu nabiga ka wariyey rasuulku inuu yihi sala allahu calayhi wasalam: alaa unabi'ukum biakbari lkabaa'ir, dad yahow miyaanan idinka waramaynin dembiyada waaweyn kuwa ugu sii waaweyn miyaanan idinka waramayn? qaaluu balaa yaa rasuula allah. waxay idhaahdeen haa rasuulkii alla way nooga waran. wuxuu sheegay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dembiyadii waaweynaa waxaa ka mid ah shirkiga, in ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyo, in naf la gooyo. waxaa ka mid a cuquuqulwaalideyn, labadii waalid in caaqnimo lagula yimaado oo cuquuqnimo lagu sameeyo ayaa ka mid a. waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay 7 wax halaagee qofka xumaan iyo jahannamo iyo kadeed u sababa inay ka mid yihiin cuquuqda labada waalid. waxaa in badan dhacda oo dhalinyarada iyo dadka waaweynba ay sameeyaan qofku inuu qof kale caayo ama qof kale uu nacdalo, oo qof hooyadii ama aabbihii uu caayo. cayda aada qof kale hooyadii iyo aabbihii aada caayayso waxay ka mid tahay cuquuqda aada labadaada waalid ku samaynayso. waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofna yaanu labadiisa waalid caayin. waxaa liyo sidee baa rasuulkii allahu qof labadiisa waalid ku caayi kara? waxaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam: yasubu aba arajuli fayasubu abaah. nin buu aabbihii caayaya oo wax ka sheegaya, dabadeedna kaasina kanuu aabbihii wax ka sheegaya. marka kan bilaabay wuxuu u soo jiiday labadiisii waalid in la caayo ayuu u soo jiiday. taasina waxay ka mid tahay cuquuqda uu labadiisa waalid uu ku samaynayo. waxaa ka mid a labada waalid markay kaa dhintaan inaad ilowdo oo aada samafalba u samayn weydo, oo xitaa aada u ducayn weydo, oo aada xusuusan weydo, weliba iyagoo ku sugan markay ugu baahida badnaayeen. labadaada waalid ee qabriga ku jira ee waxa weeye camalkoodii uu go-ay, ee laga yaabo inay dunuub adduunyada shaqaysteen loo cadaabayo, waxay ugu baahi badan yihiin ducadaaday ugu baahi badan yihiin. inaad u ducayso, salaadaha ugu ducayso, inaad ilaahay istikfaar u weydiiso. waxaa laga yaaba aabbe qabriga hoostiisa lagu cadaabayo in cadaabkii lagaga kor qaado inan uu dhalay ama gabadh uu dhalay duca ay u soo ducaysay ama istikfaar ay ilaahay weydiisay. waxaa laga yaabaa masaajid uu lacag ugu daray ama ceel uu qodayo uu waxaweye biyihiisa la intifaacayo, in labadiisii waalid ciqaabkii ay adduunya qabriga ku heli lahaayeen iyo cadaabkii ay qabriga ku haleeli lahaa in ilaahay subxaanahu watacaala kaga badbaadiyo. walaalayaal, xuquuqda ay labada waalid inagu leeyihiin aada iyo aad bay u weyn tahay. waa kuwii sabab inoogu ahaa adduunyadan inaynu nimaadno, waa kuwii daraaddeen u dhibaato mutay, dhib oo dhan u maray, waxaweye safarra u galay, mashaakil oo dhan ugu sabray in aynu wax noqonno oo dad noqonno oo aynu noolaano, si fiican aynu noolaano. labada waalid markaa in xaqooda la ilaaliyo oo cuquuqda laga ilaaliyo oo loo samafalo oo la adeeco oo wixii ay diidaan laga joogsado haddii aan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray aanay ahayn. wixii ay ku faraanna la sameeyo haddii aanay ahayn wax ilaahay kuu diiday. waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam: inama ataacatu bilmacruuf. taacadu in wax kaleba maaha waalidka la adeecaya ama madaxda la adeecaya, wax kaleba maaha waa wixii wanaaga ayaa lagu adeecaya. adeecitaan iska sii daysan oo wax walba lagu adeecayo waa wixii wanaagsan ee sharcigu u ogolaaday ama uu waajibiyey ama uu jeclaystay. wixii laakiin xumaane ay waalidka ku amraan la samayn maayo.
ilaahay subxaanahu watacaala haynagu irsaaqo inaynu u samafallo labadeena waalid kuwii dhintay iyo wixii nool iyo wixii dhintayba in ilaahay subxaanahu watacaala samafalkooda ina waafajiyo cuquuqda iyo in caasi lagu noqdana in ilaahay subxaanahu watacaala inaga badbaadiyo. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.